anigoo muddo wadanka ka maqan baa ku soo guriyo noqday wadanka anigoo doonayay inaan dhalay inaan uga guuriyo markaan imiba 23 inan baa way xidhnaayeen oo in yaroo la waayo reer Axmed ayuu xidhnaayeen ilaahay aabooy karo waxa inanka yare reer Axmed ma 23 gabooyaab uu qalmaa in loo dilo amba loo xidho bal hadee hada kolka mixing baa waxa aan ku qabanay symposium aan kaga hadlayno qadiyadan soo gagaabinaya leeno waa waqti dambe kolka inamadii ka soo baxay waxa ku jiray sidoo idin sheegay baa muxuu ahaa halganka barkhad bariga marka sidaa u eegaba waa uu jiray sababtu waxay tahay halkay taagan yihiin iyo halka adduunku marayo markaan isku eego waliba way sii hoobanayeen يعني عدو نحريستا iyo cidu dabacsan iyo waxba toona maan arkay maalintii dambe ayaa waxaan ku qabanay xarf ayaan ku qabanay barkhad baa uu ooyay mowti wuxuu nin baanu sheekaysano wuxuu warniyow xageed ayaamaha ku maqnaadii xiirtaan u baanaayay wuxuu niyow jaamacadan dhigtaa loogaan dhigtaa oo yaa noo xireeyay hadaa adigu looga barato markuu aanu ka hadlay oo hintaada carabkayga ku qalajinaya kolka imikay ka cawdaan ma law jawaabaynaadeen maxaan u jawaabaa inuu hadlaaba wax weyne maalin dhaweed baa waxaanu qabanay maxay ahayd inama ay keenay anigu ma jecli arkan inaan ka hadlo sababtu waxay tahay halkan ka soo bilaabay baan ogi waxaan dadkani waxay ku dhex noolin dad xun oo risista nin baa igu yiri shir baa tahay inta ka goo waxa midgaanimada ka horeysay bal hadee kolka waxa ku soo gabagabeynaya anigu ma jecli inaan ka hadle war xitaa ilaahay baan kaga baqanay anigu wasiirnimadan ma aqaanba laakiin dadkan aan anigu aqaan dhibaatada lagu hayaa iyo muuqata mowti waxaan anigu wasiirnimo uga baahnaa iska yarba wallaahi na gabo uga baahnay tayda iga raacdaba aniga tayda iga raacdo bahadee laakiin waxaan doonayaa sinaan iyo cadaalad dadkan inay helaan goormay helayaan haddaba sinaan iyo cadaalad war wadankan waanu leenahay annagaa le wadankan xaqayagii waanaanu ka helnaa